في الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى waxaan soo dhaweynayaa dhammaan waalidiinta iyo macallimiinta mashaayikhda iyo martida kale ardayda kulli intaa kadib hadduu alla subxaana wa tacaala ka raali noqdo maanta waxaan doonaynaa inaan halkan ku qabano musaabaqo ama tartan iyo annagoo soo afjarayno dafcadii koowaad oo macallin Saacidi ay u dhamaysay kitaabka hingaada oo maanta mataqaanaa waxa ay soo barteen halkan ku soo bandhigi doono oo macluumaad insha Allah taala iyadan nagala qayb qaadan doonto waxa kale oo inoo xigi doonto Dawladda subhanahu wa taala ka raali noqdo ardayda macallin Xaaji oo iyagana tartami doonaan oo aayadaha Quraanka qaar ka mid ah la weydiin doono insha Allah taala intaa kadib waqtiga gaabanna xafladeeni waxaa jirta insha Allah taala feasting anta iyo waalidiin wax kasta la soo diyaariyay ayaa xigi doonto insha Allah taala waxaan ku dhaxdari doonaa Sheekh Cabdullaahi oo sayna inooga hadli doono fadliga uu leeyahay Qur'aanka Kariimka waxaana mataqaana xigsan doona Sharif Maxamed oo idana English ku sheegi doona insha Allah taala fadliga Qur'aanka Kariimka iyo barashada Qur'aanka insha Allah inta kadib waynu duceysan doonaa Allah subhanahu wa taala ka raali noqdo mar kale ku soo dhawaada dhamaantiin ardaydana waxaan ka codsanaynaa si adab leh inay uga qayb qaataan amisal insha Allah taala waxaan ku furfuranaynaa aayadaha Allah subhanahu wa Qur'aanka Kariimka waxaan inoo furfuri doonaa Sharif معلن كان شريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. كذب تعالى جروبك معلن سعدية قبلها ندولة هذا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وسعدي حسن إلهي فضل جيسى كتابكي أرضيدا وأخرنا إلهي ونور دميي إلهي جنون بلاوي ونور دميي محد الصغناتي حدنا إن شاء الله أرضيدا قاركود أرضيدا قاربي ودماتي قار كيرير كان ولي ودمانتهاي
biidni illaahi insha allah waan rajaynaynaa ayagana inay u dhammaato maantay waxaan doonaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo intii ay u dhammaatay in ay nala qaybsadaan waalidiintoodii iyo macallimiintii in ay la qaybsadaan ardayda kalena ay u faa'iideeyaan wixii ay soo bartaan ardayda kalena inay ka faa'iidaystaan oo ay maqlaan waalidkii iyo macallimiintiina insha allah ay la sheergareeyaan oo ayna tusaan wixii ay soo barteen insha allah kitaabkana aan dhammayno waxaa la yidhaahdaa nuuraani qaacida u fududaynaya ilmaha hingaada cunugu markuusan garanaynin hingaada iyo qawaacidkeeda aad iyo aad bay ugu adkaanaysaa inuu qur-aanka kariimka barashadiisa marka kitaabo badan baa jiro oo hingaada caruurta laga baro balse waxaan choice garaysana kitaabka nuuraani qaacida la yiraahdo lianna aad iyo aadna wuu u fududeeyey oo maaragta casharo yar oo kooban buu kusoo koobay qawaacidkii hingaada oo dhan cunuga inuu ku fahmo si yar oo fudud alxamdulilah ilaahay wuu noo dhameeyey haddana waxaan rabaa insha allah in aan kulligood marka su-aalo yar oo kooban kama soo qaadayno lianna waxaan rabnaa wax allaale wixii ay soo barteen oo dhan ardayda kale oon qaadanina inay uga faa'iideeyaan waalidka iyo macallimiintana ay tusaan sidaan hore u iri insha allah marka dulqaad yar aan yeelano insha allah kitaabka oo dhan baana su-aal laga wada weydiinayaa ardayda midkii aan u yeero insha allah su-aalahoo dhan kitaabka awalkiisa ilaa aakhirkiisa wixii ay soo barteen ay naga tusaayaan insha allah maxamed cabdiraxmaan insha allah maxamed intoo istaag tahay ilaahay subxaana watacaala waxaan kaaga rajaynayaa intii aad baratay ilaahay inuu kugu anfaco horena aa usii socoto insha allah ardayda kalena inay kugu daydaan ilaahay kaaga uga rajaynaya ayagana insha allah maxamed lesson 1 maxaan kusoo baranay الميكروفون اللي يجيبه ما هو سلام لا حول Alphabets, Okay, how many are there? 28. ولا حول ولا Okay, did we divide them? Yes. What did we divide them? Heavy letters and white letters. Okay, can you tell me What? how many are heavy letters? 7. Who are they? 7. Kha, Sad, Dad, Da, Dha, Ghain, and Qaf. مدح كرو قدم Are they other Mala. ones that get heavy by مدح rules? كرو قدم Yes. Who? Lam and Ra. Okay, can you tell me the rules that rock gets heavy? If it has a kasra before it, it's a light. And if it has a fatha or dhamma, it's a heavy. Okay, how about the lamb? Is there every lamb or specific lamb? Lam al-Jalal. Lamb jalala. Okay, can you tell me when it gets heavy? If it has a dhamma or fatha. Okay. Can you repeat that, Muhammad? If it has a dhamma or fatha before it. Before it. Okay, so if it's kasra before the lam jalala, that Allah is going to be small. Yes. Okay. Okay, go to lesson 2. What do we learn in lesson 2? Which letter is which? Some letters are written مدح different كرو when they combine. Some letters look different. Okay. مدح عنده ديناري راح Okay, للفتوح Muhammad, أنا ندور أي في عن what do we learn in lesson 4? Lesson 4. Three. 3. Can you tell me the names? Fatha, kasra, and dhamma. Okay. Can you tell me, so what is the benefit of having a vowel? What are the benefits? Know the sound. The sound. Okay. So when you learn the Arabic alphabet, you cannot read something with just saying the letter. You have to have a vowel. Okay. So when you have the vowel, that's when you're gonna, when you can read something. Okay. So Muhammad, I want you to pick any letter, okay, and tell me how that letter is gonna sound when you put fatha. Fat.
when you put fatha, how it's gonna sound? Fat. Okay, how about kasra? Feet. How about dhamma? Fruit. Okay, mashallah. Okay, Muhammad, you're done, and I'm very happy for you. And this is your grade 5. Can you tell me what we learned in lesson 5? Lesson 5, we learned double vowels to me. Okay, so it's double vowel, and it's called tanween in Arabic. So is tanween stand by for something? And it stands for Nun Rayban. Okay, tanween stands by noon reba. Okay. Siham, can you tell me the double vowels, the names? Fathatain, Kasratain, and Dhammatain. Okay. Are they different when it's fathatain and when it's kasratain and when it's dhammatain? Yes, Fathatain has an alif. Okay. So when you put any letter fathatain, it will always follow with alif will always follow. So the kasratain and the dhammatain, they don't have alif that follows it. And when we read it in the Quran, we explain what the alif is going to be when we read it in the Quran. Okay. Sihan, choose any letter you wanted and just tell me when you put double vowel how it's going to sound. Sin with Kasratain is Sin. Okay. Sin with Dhammatain is Sun. Mm-hmm. And Sin with Fathatain is Sun. Okay. MashaAllah. I'm proud of you. Okay. Lesson 6. What did we learn in lesson 6? Put short vowels and double vowels together. Okay, it's an exercise, right? So since we already learned right now, lesson 1 was just to know the alphabet. Lesson 2, the difference of. Then we learn a vowel like fatha, kasra, dhamma, fathatain, kasratain, dhammatain. So now we have an exercise on lesson 6. That exercise is a small words that has only fatha and kasra and dhamma, or fathatain, kasratain, dhammatain. Just the 2 lessons that we read. Okay, Sihan, go on line 6 and read it for me. خشية, خلق, خلق, ذكر, رفع, رقبة. MashaAllah. Okay, Sihan, what did we learn in lesson 7? صغيرة. Okay. Can you say that again? Close to not met. Yeah. Close to it. Can you say that again? صغيرة. we learned Huruf stretch. Saqira, you mean? Okay. Huruf Saqira is when you stretch. Okay. Can you tell me the names? How many are there? 3. 3. Okay. Can you tell me the names? Small alif, small ya, and small waw. Okay. In Arabic? Small alif صغيرة, ya صغيرة, waw صغيرة. MashaAllah. Okay, Siham, do they have a rules that they follow? Yeah. Okay. What rules they follow? What rule that alif? No, number 1. Can the alif saqira by itself stand for some, or it has to be followed with somebody? It can be any letter. No, I want you to tell me. Can it stand it by itself, or it has to follow with somebody? Has to follow. It has to follow with somebody. Okay. So can it follow with every letter, or it has to follow specific letters? Any letter. How about a vowel? Does it follow with every vowel, or it has to follow a specific vowel? A specific vowel. Specific vowel. Okay. So let's see alif saqira. Alif saqira, what vowel that it has to be a vowel? Fatha. Fatha. Alif saqira has to have a fatha. The only, how about kasra? Can you go with kasra? Yeah. No, alif saqira. Okay, alif saqira you cannot follow with alif ya saqira, or waw saqira. It only needs to follow alif saqira, alif fatha. Okay, how about ya saqira? What vowel that it follows? Kasra. Kasra. How about waw saqira? Dhamma. Okay, Sihan, choose any letter and tell me when you put, give me alif saqira with that letter. Ba with alif صغيرة is ba. Okay, no, I want you to get it. Oh. Ba fatha alif صغيرة ba. Okay, so give me ba with ya saqira. Ba kasra ya صغيرة bi. Give me ba with waw saqira. Ba dhamma waw صغيرة bu. Okay,
ما شاء الله. وحيرنا والدينتا إيه هو explain. كبسة. Lesson 8, we learned Sukun. No, lesson 8. Are you on lesson 8? Yeah. Okay, lesson 8. What do we learn? Two Long- things. Long vowels and short vowels. Okay. What is the name? Tell me the name. Maybe. حروف المد. حروف المد. Okay. Siham, we learn in حروف المد. حروف المد is a long vowel. Okay, almost similar than what we just saw right now. Okay. Tell me how many are حروف المد? How many are there? 3. 3. Can you tell me the 3? Alif, Waw, and Ya. Alif with what? Alif with Alif Saqif, Alif Sukun, Alif Sukun and Waw Sukun, Ya Sukun. okay. And they call حروف المد, right? Okay. Do they have a specific vowel that they follow? Yes. Okay. Tell me the vowel that they follow. Alif Sukun goes with Fatha, Waw Sukun goes with Dhamma, Ya Sukun goes with Kasra. Kasra, mashallah. And they can follow with any harf. Okay, mashallah. Tell me, you can choose any letter you want it and read it for me. When you have a wow with it and when you have ya and a alif. Alif Fatha, Waw Sukun, Alif Fatha, Alif Sin Fatha, Alif Sukun, Sa, Sin Dhamma, Waw Sukun, Su, Sin Kasra, Ya Sukun, Si. Okay, mashallah. I am proud of you, Sihan, mashallah. أرضي آد وجدان بدن بعد هيك to the beginning إلا حتى إن شاء الله إلهي نحن كعبر يا هبرنا هرقص جدان شوف إن شاء الله you're done and this is your great part. We are still on lesson 8. Siham just finished the first part. Can you tell me the name of the second part of lesson 8? Madeline. Madeline. Okay, how many letters that Madeline work? Wow and Ya. Wow, and yeah. Okay. Can you tell me, can they follow with every letter or they follow with specific letters? Any half. Okay. How about the vowel? What vowel does it have? Huh? Okay. So unless can you stretch Madeline? How about the Mad الطبيعي, the other one? Madeline you can stretch, but حروف المد you can stretch. You can stretch. Okay. وحي روح أنا هالكاسنا إن شاء الله وحي فاهين الدين بالمدى. سهام إنه فاهيسي إنه سد حرف كشقايو شغل كاس قولني لنا أوراعو لنجيله. مد كان لبعض وحليل هذا مدلين لما حرف كشقايا واو يا مركا شقل كي هرئي هيستين مدو طبيعي وكد وياها كان لبضبا والله كردقايا واونا waxa ka hormaraya xaraf kordhigan ya-dana waxa ka hormaraya xaraf kordhigan meelaha marka quraanka markii la akhrinayo aad iyo aad maaragtay qofka markuu san garanay sharciyan say u shaqeeyaan aad looga fahmo in maaragtay oo si adiga aan qur'aaneyn u akhrinayo quraanka hay'adda dhammayd ay isbedelayso waxa ka mid ah madaliinka markii la akhrinayo sababtoo tahay dadka yacni qofka markuu san garanayn inaan la jiidinin hadduu jiido kelmaddaas waxa waaye kelmadii dhan waxay noqonaysaa si kale u dhawaa maaragtay u ekaanaysa qofku markuu sharcigiisa garanayo marka aad iyo aad waxaan ilmaha xoog uga saarayay oon weliba kelmado intaan soo qaadna ku baraagtiis garaynayna maduliinka inaan la jiidinin sida hadda fii laylati lqadri oo kale haddii qofka leey uu yidhaahdo uu jiido istaraj gareeyo yacni qur-aanka quruxdiisii dhammayd iyo hay-addiisii dhammayd buu si aysan ahayn ka dhigayaa asagoo qofkii aqoon darre ay u geysay marka maasha allah aad iyo aadaan uga soo shaqaynay madkaana in la jiido oo la stretch gareeyo hane uusan ogolayn uuba sensitive ku yahay in la stretch gareeyo marka ilaahay mahadiisa waa aad iyo aad bay u fahansan yihiin waanu ku faraxsanahay ilaahay mahadiisa in ay maasha allahu akhrintiisii iyo sharciyanba ay u fahmeen yacni kitaabkan ani xoogga maan saarinin inay ilmihii bartaan kaliya waxaan kaloo xoogga saaray inay fahmaan waxaasay u shaqaynayaan
lianna qofka wix hadduu iska akriyo uusanna fahansanayn siday u shaqaynayaan yacni faa'iido badanaa ka maqan marka faa'iidada ugu weyn oon ku baranaa waxay tahay waxaan yacni sidaan markay u qoran yihiin reasonkaasay ugu qoran yihiin sharcigaasaa raacaayo shaqalkaasaa raacaayo xarafkaasaa raacaayo saas haddaa samaysana waa fool xumaana saas haddaa samaysana waa saxdii aa u akhristay maasha allah I'm proud of you Habib. insha allah go to lesson 9 lesson 9 is an exercise inti hadda cunuga uu soo bartay oo ahayd in vowelkii long vowelkii short vowelkii inti uu soo bartay baa exercise waxaa lagu siinayaa kelmado inuu ku akriyo okay mahad go on line 2 and read it for me okay you go to line 3 but it's okay keep going I ask you line 2 but it's okay I'll take line 3 keep going right جيء خوع careful Habib. جوع Can you say that again? جوع No. I don't take that. Okay. Jim, when you put dhamma and there's a wow after it, جوع ju'in. Okay? It's okay. qofka markuu arday yahay wax wuu qaldaaya annagoo dhan aana wax wada qaladno laakiin alxamdulillah inuu at least yaqaano wixiisay u shaqaynayaan that's the important part. Okay, it's ju'in. It's not Joe, right? Because there's the Jim has a dhamma, it doesn't have something. Okay, mashallah, keep going. خوف Good, خير good. داود Can you say that again? داود Okay. Is that wow or it's a hamza? Be careful. داود Wood. It's not wood, right? It's not hamza. It's wow. Okay. كلمتها ما شاء الله ضدك بدن توصل على الأقل داود ما هي داود واو it's not hamza ما شاء الله I'm proud of you Habib. You did good to the beginning إلى أي حد الآن عادي بداية وفعنا ونفرح صنعي I'm proud of you إن شاء الله أنا هروسي سعتنا بدينا يا and this is your great Filson on lesson 10 what did we learn in lesson 10? When you put hamza front of the can you start with sukun? حرف ريال can you start with something? Okay, it has to have something before it always. حرف كسر بوصل ريال. Okay, so when you put hamza before the harf that has the sukun, what's gonna happen? What are you gonna find? Okay, Filson, when you get hamza before the harf that has sukun, and you put sukun in the harf, you will find something. What are you gonna find? حمزة فتحة تاء سكون أتى حمزة كسرة تاء سكون Okay, Filson, it's not ata. Ta ma qabta qalqala, okay? أت Yes. It needs the air. Ta-da markaa reebto airka haddaadan siinin hamzi wax la yidhaahday qabtaa haddaa airkaa siinin ayada iyo daalka way isla dasheen daali way saanaysaa so always qofka waa inuu hamziga siiya kacda aad uu yidhaahdo airkaas uu dashay ay حمزة كسرة تاء سكون أت hamza fatxa taa sukuun حمزة فتحة تاء سكون أتى no it's not ata you're giving a qalqala taa does not have qalqala حمزة فتحة تاء سكون أت حمزة كسرة تاء سكون إت حمزة ضمة تاء سكون أت ما شاء الله مع الحمزة لنا همزة يعني حمزة Hamza. Yeah, it's not Hamza. Every time I used to tell you that. It's not MashaAllah. Hamza. Okay. Siham, sorry. Filsa. Go to line 4 and read it for me. Go to line 4 and read it for me. lesson 11 Yes, on lesson 11. What did we learn in lesson 11? It's an exercise. is exercise Okay, go read it for me. then There you go. Abdan. Okay, keep going. أدني I keep going. 20 Good, keep going. أسف Keep going. Okay, good. MashaAllah. Go to the next page of the same lesson and read it for me on the line 3.
keep going. Yeah, mashallah. Add the other yes, you're a great class. Lesson ka ugu tafsanaya kugu soo aaday, but I know you can do it. Mashallah. I know you're a very hard worker, and I know you can do this. Okay, read this. What did we learn in lesson 12? We learned shed. Okay, what is the shed? As What does it stand for? double letters. It stands for double letters. Okay. And the sign that you can know is that little sin thing, right, on top of the. Yes. Okay, mashallah. So you say it's a double letter. Is it going to be two different letters or two same letters? Same letters. Two same letters. Okay, then what am I going to do? When I have right now, I have over here a bet that has a shadda. So if there's a two bets over here, what do I need to do? The first bet you sakun it with the alif in front of it. Is it only going to be alif or any thing? Any letter that is in front of it. Okay, you have to sukun it with whatever that's before it, and then what am I going to do with the other bet or any other letter? The other bet you give it whatever have it had or vowel. Oh, Whatever vowel it had. Okay, mashallah. waxay halkaas rabnaa inaan explain garayno maasha allah in carabi uu ku soo dego marka waa luqad aad u xeelad dheer marka xarafku markuu shidan yahay laba xaraf uu ka taagan yahay labada xaraf marka shaqalkii la saari lahaa iyo sidii la iskugu reebi lahaa iyo si u shaqeyn lahaa qofka hadduu fahansaneen uu yidhaahdo qur-aanka uun baan keliya ku dhex baranayaa qalad aad u badanaa ka dhacaayo sidaas marka daraaddeed alxamdulilah ilmihii waxaan aad iyo aad iskugu dayay inaan fahansiiyo shidka soo u shaqeeyo wayna fahmeen ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu qur-aanka ugu fududaado insha allah muxiidiin waxaan rabaa waa noo sharaxda soo u shaqeeya shidka waxaad tirahda double letter waaye waa same letter xaraf kale meesha lama keenaayo labada xaraf midka hore waa lagu soo reebaya midka kalena shaqalkiisa loo daynaya sax okay waxaan rabaa inaa isbeeliso okay qofka markuu isbeelinayo labada qof oo isla yaqaan un baa fahmayo maana dad kale way yaabay maxay leeyahay xarafka reeb xaguu yahalaa waa xarafka idin sheegay oo reebnaa meesha ku dhex jiro marka muxiidiin waxaan rabaa inaa isbeeliso I want you to spell it for me on go to line 8 if you want just any line you want it just I want you to spell it for me okay line 8 Line 8? Yes, go to line 8 okay. and spell it for me. Alif Dhamma Ba Sukun Ab Okay. Ba Kasra B Ab B Alif Dhamma Ba Sukun. No, suk. Line 8 and Jugnaya. The alif, what kind of vowel it has the alif? Dhamma. Okay, so alif, dhamma, ba, sukun. What do you say? U. Yeah? It's Ub. Okay. How about the, okay, go. Keep going. Ba kasra? Ba Kasra. Ba Kasra B. Hi. Ub B. Ubbi. Okay, mashallah. Keep going. Alif Dhamma Ba Sukun Ub. Ba Dhamma Bu. Ab Ubbu. Ubbu. Okay. Keep going. This is what I was looking Alif for. Fatha Ba Sukun Ab. Ba Alif Fathatayni Ban. Abban. اسمها فتحتين okay No, فتحتين Fathatayni. okay good ما شاء الله انتاس بإلهي سبحانه وتعالى مهدي سوايا محيدين وحنو إسباليي وحي يعني ماشي كجرودان يعني أبي أبو إني تهوو أجيدا أو أخرين كراسات لكن وحن كحجية عندها حرف كمقن أو ماشي كقرصان إيصا بحي إسبالي marka alxamdulilah ilaahay mahadii sawaaye ma sha allah I'm proud of you waxa kale oo arkaysa yani hadda xarafkan wuxuu wataa fatxa tanwiin buu wataa tanwiinta mar walba waxay sida ay noo soo sheegtay waxaan u malaynayaa sihaamna ahayd ma xasuusto cunuga akhrinayay fatxa maxaa la yiraahdaa casharka oo tanwiin yani alif bay wadataa markay fatxatayn tahay yani waxa arkaysa ma sha allah fahankiisa xataa alifta fatxataynka wada muusa ka tagin wuxuu yiraahday alif ba lagu reebay ab bay noqonaysaa ba fatxatayn iyo alif wadatane ban bay noqonaysaa wuu isku kiciye ma sha allah ilaahay mahadiisa waaye alxamdulilah I'm happy for you habar aadan kuugu faraxsanaan fidiin
cunug dadaal badanaad tahay cunug wanaagsanaa tahay insha allah ilaahay waxaan kaaga rajaynayaa inaa hore u sii socoto insha allah grade-kaa kaagana waa kana I'm proud of you. We are on lesson 13. Muhyiddin just explained to us the shadda, and lesson 13 we all know is going to give us an exercise. The exercise of reading everything that we learn, okay? Mainly focus ka wuxuu saarayaa shadki hadda aan soo baranay. Okay, Muhyiddin, go on line 8 right over here where it started and read it for me. Be careful, okay? Right over here, yeah. No, not next page, just the same thing. Right there. حسن Okay, keep going. عدد قدر Okay, mashallah. Okay, go to the second page. Okay, line 6, read it for me. Marka cunuga yani waxaan rabaa lesson-kan waxa waaye exercise waaye exercise waxa waaye wixii aan soo baranay oo dhan hingaada hadda waxaan joognaa conclusion meesha ugu dambeysaan joognaa marka yani long vowel short vowel yani madkii oo nooc walba shadkii kulli wixii oo isku soo daray ayaa waxa lagu keenaa kelmad ay wixii oo dhan ku wada jiraan marka kelmaddaas inuu kiciyo meel kastaan ugu soo qabana maaha waxa ani asaga isla ognaay iyo meel gooniye anywhere aan ka soo qabana I just want inuu kelmaddaas iyo akhriyo okay so go ahead line 6 جاجا ما شاء الله keep going غساقا the rain does not have kasra it has fatha غساقا ما شاء الله keep going Harry go to the third one حال لون yeah لامكاس ضمتينك بان صفة عن مقلدين okay keep going كذابا ما شاء الله وهاجا ما شاء الله I'm proud of you ما شاء الله لسنة ما أقول لك بدنا وايه marka ما شاء الله every كلمة أو لغو سو قبتنا I'm sure إنا آخرين كرتو إن شاء الله آدم كوغو فرح سنة هبري أرضي آدم جدار بدنا أهيد إلا يهدر تانا وحان رجينا أنا هرؤسي سعودة إن شاء الله great كاركاد نواكنا ما شاء الله I'm proud of you وارد كانوا حنكو إن شاء الله بيردلنا يا إن المهو ضمروا البقرة تاعنا لأن معلمينتو ووقت ير مدير الحيستان يعني ساعة وقت ير وبينو للجوجان وقت وجبدا جوري وارد كي نسوق هذا نايا مركا عنقاق قرب تاجنتهاي أو حتى معلق عنقاق 10 كسينا يقعد قرب تاجنتهاي عنقاق ما محو كبحي محو يقانا محو كل ساعة تراهضو واحد أوباتا إن يعني معلق حتى يرجلين وهلايا عنقاقي هلايا يرجلين واردكيس عنق قرب تاجني من نقنايا مركا معلمين ترى إنت أصلا كبرارجنا واردك إنت أصلا كبرارجنا يا إن شاء الله رالنا إلى هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waayo shay kasta aasaaskiisu waxaa weeye haddaan laga boodo mataqaanaa qof hor uma soconayo marka hingaada ayaa u muhiimsan qofka haddii uu awoodo inuu qur-aanka hingaadiyo uu kicin karo qur-aanka kalena u fudaanaya mataqaanaa suuradaha kale marka maasha allah wax weyn bay nagu soo kordhisay maanta haddii ajar xasanaad allah ka siiyo waalidiinteedii dhammaan allah mataqaanaa wixii ajar kasoo xasila allah gaarsiiyo insha allah iyadana qur-aanka maalinta qiyaama u shafaaca allah ka dhigo insha allahu tacaala intan haddana waxaan gelaynaa qaybta labaad oo ardayda qur-aanka kariimka ku tartamayaan macalxaaji ardaydiisa insha allahu tacaala macalxaaji aan ku wareejinaya insha allahu tacaala I'm gonna wait until you stop. ما شاء الله. raalli noqdo annaga xoogaa waxaan loo sheegay waqti badanna lama siinin kitaabku waxaa marka hore markan quraanka gadaal looga daray marka insha Allah ardaydan xoogaa iga raalli noqdaan maadaama short time aan waqti aan siinin insha Allah laakiin we'll do our best okay insha Allah macallin saacadiina jazakallahu khair aad iyo aad u mahadsan tahay aad iyo aad ardayda hadda quraan waxay ma arkin oo hingaada bartay wax weyn aan iga anfacay insha Allah tii dambe waa ka dhegshay ka hadlaysana سهامة قلت لي سهام قلت ممكن جبت عن كويس سفع عن وعي العلم قلت المعلم عن العلم مربط معلومات ضوء حيرة تاعتي إن كعنت عن كعيم ومية لكن إن كوع العلم مربط ما شاء الله جزاك الله خير
اقرأ قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويسدوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. والمنافقين وامرأة اليهود كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذا قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها بالله من الشيطان الرجيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. اقرأ قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اقرأ قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. جزاك الله خير. اقرأ قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اقرأ قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخادمون ولا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض له الملك وهو العزيز الحكيم. اقرأ قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا الليل فاسجد له واسبح ليلا دويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بالله من الشامل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ورسله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. يا أيها الذين آمنوا وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. جاد وحمود على المد وحي ثلاث قال إني لن يجيرني من الله أحد ولن نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالاتي ومن شيء عددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ساقهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكنون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مستندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ما شاء الله تبارك الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنهم بكل شيء بصير. تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى جزاك الله خير. Thank you. فما له من قوة ولا ناصر. الشيطان الرجيم. فما له من قوة ولا ناصر. ذات السد إنه لقول الفصل وما هو بالحسن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. waalidkii u duceey waxyaalo badan oo aan Afrika ay sameyn jirnaa inta ku haysataan subax dugsi waxaan jirnaa anagoo waxbana la siinin gaajaysan without eating anything get up brush your teeth waa bixi dugsiga adoo gaajaysan hadda waa 5 saac markay tahay 11 markay tahay oo 11:30 aan soo deeyna waxa lagu leeyahay soo cun quraac soo laab quraac soo cun soo laaban dugsi waxa isku siinay ma jirin. There was no pizza. They couldn't afford. Nobody can afford pizza. Nobody could afford pizza. Inta nafir subax hataa imo laguma dhihin. Waxaa lagu dhahaa duhurkii imo. Adoo caloosha soo dharga inta imaanay 2 saac markaa joogto calaa macaan I'm hungry. I'm serious. Qaara iiman wuxuu kale macaan I'm hungry. Guri ma eelka xum soo cuni karaa. Qaara wuxuu leeyahay hooyaan dalbana McDonald's ii keeni. marka quraanka saa ku baranaysaan iyo dad saa ku baranaa isma laha marka waa idinku faraxsanahay jazakallahu akbar uma santiin insha Allah على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله إلهي بأمنا هذينا سبحانه وتعالى ساعة بدن بان قادمناي meeshan الحمد لله anaga oo dhageysanayna إلهي سبحانه وتعالى كلامkiisa iyo maxaa la yiraahdaa ka faa'iideysigii ay ardaydu ka faa'iideysanaysay ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galnay kulankan ay tartanka ardaydu ku sameynayeen quraanka looga dhageysanayay farxadaas kadib waxaan mahad u celinayaa mar labaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar saddexaad waxaan mahad u celinayaa macallimiintii ardayda wax soo baray khaasatan macallim Saadiyo aad baan ugu mahad celinayaa sababta waxa weeyo macallinka dhabta ah waxa weeyo macallinka farta baray ardayga weeyo ardaygu markuu quraanka barto waxaa la weydiinay macallinkaadi waa kuma yaa quraanka ku baray khasab waa in uu marjic u leeyahay quraankiisa meel uu ka yimid oo uu u abtirsado macallinkayga macallin hebel waaye macallinkiisina macallin hebel waaye ilaa iyo waxay soconaysaa maxaa la yidhahdaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam la ilaahay quraanka lagu soo dejiyey marka waxaa su-aal ah ardayga macallin uu farbaray si fiican u farbaray laakiin nasiib daro markii uu farbarkii u dhameeyey ayuu macallinkii ayay kala tageen macallin kale ayaa ku wareegay farbarkii ilaa quraanka ayuu dhameeyo xifdiisi siiyey yani inta badan quraanka waxaa farbartaa mantii uu lagu jiro 2 juz oo horo baa farbartaa marka 2 juz oo u horeyso ilaa quraanka uu dhamaaday macallin baa baray oo xifdisiiyey haddaba labadaas macallin haddii miisaanka la saaro keebaa macallin u noqonaya ardayga waxaa macallin noqonayo macallinkii farbaray soddon juz quraanka soo maaha laga yaaba macallinkaas 2 juz oo ugu horeysa keliya inuu baray 28 juz macallinkii baray oo kale oo quraanka oo dhan soo baray oo xifdisiiyey waxaa ka xaq leh macallinkii farbaray sababtu maxay tahay macallinkaan waxba ma bari kareen hadduusan farbarka uusan ahayn waayo ardayga marka uu farta barto
cashirka hal mar aa loo akrinhayaa wuu akrisanhayaa bal suurad uu gaarin baa leeyahay meeshaan akri markaasuu akrinhayaa keliya marka wuxuu u baahan yahay macallin uu ka daba akriyo oo carabkiisa uu raaco keliya saa darteed waxaa la yidhaahdaa qur-aanka alifka ka khaldamay albaqara kama tooso carruurta inay fahmayaan maamaadaas maogi maxay tahay alifka waa bilowgii farbarkii iyo bilowgii hadduu qofku ka khaldamo oosan baranin baqara xitaa hadduu tago ma fahmin wey macnaha ma fahmin marka insha allahu tacaala macalin sacdiyo mar labaad iyo mar saddexaad si gaaraan ugu mahad celinaynaa ilaahay khayra siiyo weliba qur-aanka qofkii fahmahaya ayaa fahmaya wixii ardada la weydiinayay iyo sida ay isugu xirahayeen yani waxaa weeye si buuxda weeye maasha allah aada iyo aada maaragtay maxaa la yidhaahdaa hambalyadii u mudan aada iyo aad baan ugu mahad celinaya insha allah waxaan rajeyneynaa macalimiinta iyo mucalimadda inay dib isugu noqdaan oo haddana galaas kale ay noo soo kiciso insha allahu tacaala waan rajeyneynaa waxaan kale oon codsanaynaa macalimiinta ardaydaas hikaada baratay lagu wareejiyey inay oga faa'iideeyaan wixii ay soo barteen ay oga faa'iideeyaan hadda way fahmayaan waxaa loo soo qabanaya ciwaan la markaasaa leeyahay akri isku wixii waxa la wixii meesha laga rabay hadday shid tahay hadday ma tahay hadday wax kasto marka waa fara ku hayn hadda farahay ku hayaan macalinka ay ku wareegaan marka waa inuu oga faa'iideeyo oo in aysan fahmin oo waxay akrinayaan uu lagu mutaabaqeeyo waxa ay soo barteen insha allahu tacaala macalimadana galaas kale inay noo soo kiciso oon kasoo qayb galaan rajeynaynaa sideedana qur-aanku waxaa weeye waa farta weeye waa farta qofku inuu barto hikaayad inuu barto wey qofku hikaayad hadduu barto waxa weeye meeshuu doonuu qur-aanka akrin karaa isagoon macalin u haysan inkastoo ay sida barakada iyo wanaagga ay tahay inuu markasta macalin u haysto laakiin muhiimaddu waxaa weeye hikaayadda weye maasha allah aad baan ugu mahad celinaya intaas waa intaas waqtigana wuu iska yeelyahay waxaan si gaara u fiirinahayay ardayda markay meesha soo fadhiisato sida ay ku bilaabanayeen sideedana waxaa weeye qur-aanka inaad barato keliya ma aha aadaabtiisana inaad baratona waa qeyb kalo haddaadna aadaabtiisa baran waxbaa kaa dhiman aadaabtiisa maxay tahay qofka halka markuu soo dha fadhiisto inuu yidhahdo acuudu billahi min ashaytaani arajiim inuu yidhahdo I remember shariifka hadda ka hor cashir uu siinayay ardayda uu siinayay acuudu billahi min ashaytaan arajiim wax badan uu soconaya marka u horeyso marka qofka waxaa weeye macalinka markuu yidhahda iqra qawlahu tacaala bacda acuudu billahi min ashaytaan arajiim de asagaba kuusii sheegaayo waa inaad tiri acuudu billahi min ashaytaani arajiim markaasna aayadda bilowda wey waa aadaabta qur-aanka wey waayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaani arajiim qur-aanka markaad akrinayso ilaahay magan gal shaydaankana ilaahay ka magan gal innahu laysa lahu suldaanun cala aladiina aamanuu xujo iyo waddo uu u maro oo ma helahayo kuwa ilaahay rumeeyey oo ilaahay ka magan galay wey marka waa inaad tirahda acuudu billahi min ashaytaani arajiim in aad tirahda wey waayo sidaan ognahay maryama bint cimraan hooyadeed maamo weligeed wax dhalin bay ahayd weligeed waxba maysan dhalin ninkeedii oo cimraan ah oo ilaahay qur-aankiisa ugu sheegay suuratu aali cimraan baa loogu magac daray familkaas ninkana wuxuu ahaa nin oday ayuu ahaa laakiin masjidul aqsa buu iimaanka ahaa kaalin weyn buu diinta ugu jiray wuu dhintay markuu dhintay ayaa wuxuu dhintay iyada oo islaantii uur ay leedahay waa maryamo bint cimraan hooyadeed markaasay aada u walbahaartay ninkeeda maqaamka uu u joogay beytka ilaahay iyo diinta meeshii oo dad kale uu ku wareegay oo diintii iyo salaadii iyo beytka ilaahay ay hogaaminayaan iyo ka walbahaartay markaasay ilaahay bay nadar la gashay ilaahayow cunuga uurka iigu jiro wiil iiga dhig bay tiri wiil ilaahow iiga dhig haddaad wiil iiga dhigto ballan waxaa igu ah in aan ku wareejiyo booska aabihii oon u tarbiyeeyo yaa ballan igu ahay tiri ilaahay wuu aqbalay laakiinse ayada maxay ahayd waxay fiirinaysay
booskii ninkeeda uu u joogay masaajidkii beytka ilaahay iyo diinta laakiin wax ka weyn baa ilaahay u ogaa subxaanahu wa tacaala markii ilaahay ay weydiisatay waxay suganaysay marka ilaahay baryadiisa inuu aqbalo wiil ay dhasho ay masaajidka ay ku wareejiso iyo nebi zakariya ay tiraahda diinta u khaadimo gabar bay dhashay marka gabar bay dhashay markii ay dhashay baa la yidhi waa gabar baa la yidhi markaasay tiri ilaahayow wiil baan ku weydiistay laakiin gabar baad iga dhigtay markii ay tiri ilaahayow gabar baad iga dhigtay maxay samaysay inay magac u bixiso iyo in ay ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiiso shaydaanka inuu ka badbaadiyo iyada iyo duriyaddeeda hooyada oo waqti ugu xanuun badan sooma marka ilmaha laga soo qabto hooyooyinka baa nala jooga waa xaaladda ugu adag wey xanuun inay wax gartaan baa iska yar marka hamigeeda iyo diinka ilaahay sida ay rabto duriyaddeeda in ay u dhaxashiiso darteed ayay xanuunkeeda intay ilowday iyo waxay bilowday dhaqsa broseskii laga maarmaanka ah oo ah ay tiri ilaahay oo goor baad siisay wa innii samaytuhaa maryama wa innii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaani rajiim ilaahayow gabar baad siisay maryaan u bixiyey bay tiri wa innii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaani rajiim ayada iyo duriyaddeedana waxaan ku weydiisanayaa shaydaanka inaad iiga badbaadiso ilaahay wuu oga badbaadiyo subxaana duriyaddiina maxay noqotay nabiyullaahi ciise dhashay ya maasha allah marka waxaa weeye mar walba marka waa in aan acuudu billahi min ashaytaan only marka qur-aanka la akrinayo maaha markii wax la cunahayo markii musqusha la gelahayo marka waxaa weeye wax kasto in ilaahay subxaana wa tacala lama galo wey marka raggaa dhalinyarada waaweyn marka qur-aanka waa fiicneyd maasha allah hal ninaan umalaynaya miduu ah ma aqaano arano cabdullahi miyuu ahaa mid baa yidhi acuudu billahi min ashaytaan rajiim marka taas waa point in ka maqan oo u baahan tihiin insha allahu tacaala waa inaad tirahdaan acuudu billahi markaad tirahda acuudu billahi min ashaytaan rajiim ilaahay baa qalbigaada ku dejinayo ma baqaysid hadda ragga waa gergerinaysid rag baa gergerinaya soo ma halkaas ay ka maqnay taas ay ka maqnay laakiin taa haddaa samaysa gergerin malaata wax walbo maasha allah way ahaan lahayd marka taa horta saas iyadoo sameeyo aadaab badan baa jirto wax badan arkaya shariifka oo in akrinayo maasha allah waana idin akrin doonaa kow marka saddex waxyaalood ayuu rasuulkeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam saddex waxyaalood qof kastoo islaam ana laga raba saddexdaas wixii kasoo harana waxaan jirin in ay yihiin sida rasuulkaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kun caaliman aw mutacalliman aw muciinan walaa takun raabican bu nabi calayhi salaatu wasalaam waxaad noqotaa caalim midka wax baranahayo ardayga aw mutacalliman midka wax barahayo aw saamican midka dhegaysanahayo aw muciinan midka u kaalmaynahayo walaa takun raabican fatuhlika bu nabi calayhi salaatu wasalaam qofka afraada noqon oo markaad fatuhlika aad halaagsanto waa halaagsan yahay qofka afraad waayo qofku waxaa looga baahan yahay saddexdaas dabaqadood wey inuu yahay mid qur-aanka ilaahay baranahayo inuu yahay kii macallinkaa wax barahayey inuu yahay kii u kaalmaynahayey inuu yahay wixii ka soo haro ha noqon bu nabi calayhi salaatu wasalaam oo fatuhlika aad halaagsanto wey halaagsanto yani waxaa weeye saddexdaas dabaq waxay aan ahayn wax halaagsamay wey suu rabi nabi noo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala waalidiintana macalinka waa laga hadlay macalin ta'diin carabi ku dhufatay wax yar oo loo saacayo macalinka ardayga la jooga macalinka ay islaazimayaan waa waalidka wey waalidka oo haddii aad wax garanayso oo taqaano ooga faa'iiday intii tabartaada caruurta la akri waxay akrinayaan ka hubi haddii aadna aqoonin attentionkaada mar walba ha joogo oo in ay wixii soo barteen iyo tarbiyadooda iyo waxa ay yihiin iyo waxay soo faa'iideen dabagal ku sameey insha allahu tacaala markii sidaas la sameeyo maxay dhihi jireen dadkii hore qur-aanka waxaa lagu bartaa
afar waxyaalood afar tiir baa qur-aanka lagu bartaa waxaa la yidhahdaa macallin arday akhris dheer macallin aayad toosin badan hooyo aqool badan iyo aabba agaasin badan dadkii hore xigmadoodii wey laakiin wax la ogaaday wey maxay tahay macallin arday akhris dheer hadduu ardayga yidhaa hoos u akriyo hadda waa maanta waxaa la kor u qaada af kor u dhaha ma aha haddii hoos u akriso silent waxba ma fahmaysid waa inaad kor u akriso kor haddaa u akriso macallinka ayaa ku maqlahayo lacala haddaad wax khaldaysi wuu ku toosinaya saas dheh buu ku leeyahay laakiin haddaa waxaaga aqarsatay macallinkiisa never know waxba ma og waxaad sheegayso khaladkaadaasaad haysanaysaa lama baahna marka kor in loo akriyaa la rabaa kor midda kale kor markaa u akriso lisaankaada iyo qalbigaada way isku xirmaayaan kor markaa qur-aanka u akriso qur-aanku wuu ku gelaya marka maxaa la yidhahdaa midda koowaad waa arday akhris dheer iyo macallin aayad toosin badan wey macallin aayad toosin badan maxaa weye macallinka caruurtii oo wax khaldayso hadduusan tan ka yeelanin ilmaha waxaan baranayaan macallinka waa inuu attentionkiisa joogo kaas markuu akrinay sax uu toosiyo kan u toosi laakiin macallinka hadduu laftiisa uu facebookiisa qacda ku hayo caruurtii waxay doonaan bas akrinayaan laxbi akrinaya lama baahan marka macallinka inuu attentionkiisa joogo aayada uu toosiyo saas yeel kan soco macallin aayad toosin badan waa macallin attentionkiisa joogo oo ka warqabo ardayga waxa uu akrinayo inay sax yihiin inay khalad yihiin iyo hooyo agaasin badan maxaa agaasinka hooyada waxaa rabaa inay kasoo dabakacdo dugsiga ay imaado macallinka ay la sheekayso la shirto maxaa jira ay tiraahdo see wax u baranaya cunugee akhlaaqdiisa ay ogaato fahamkiisa ay ogaato waxa uu u baahan yahay halkaas ay kasoo ogaato halkaas dugsiga intay kasoo ogaato wuxuu u baahan yahay hadduu cunug akhlaaq xun yahay halkaa kasoo ogaato xagga hadduu guriga u yimaado nin fiican baan aniga oo yidhaahdo oo kami ama gabar fiican baan ahay waxba kama ogo waxay tiri laakiin halka hadday timaado gabadheeda ama wiilkeeda waxa uu yahay environmentiga iyo gudaha iyo ardayda iyo respectiga macallinka way ogaanaysaa then waxa usoo baxayso waxa uu u baahan yahay exactiga cunugeeda marka waxay ta hooyo agaasin badan baahida dugsiga ka jirto waxaa loo baahan yahay macallinka meeshana hadda baahi maba jirte laakiin waxaa laga hadlaya oo maamahadaas lagu fadhiisiyay waxay ahayd meel macallinka uu baahan yahay oo hadduu alla kusin ogolaya wax badan loo baahan yahay marka hooyada ka warqabto baahida marka qayb ka mid ah jirto hadda maxay tahay waxaa ugu miisa waxaa weye hooyada cunugeeda inay ka warqabto marka hooyo waxaa weye ka warqabto oo dugsiga ka warqabto oo waxa socdo waxa horumar la gaaraya gabdha stop please stop waxa horumar la gaaraya iyo la socotaa la rabaa iyo aabba agaasin badan baa la yidhaha asagoo kor buu ka wareegayaa xaaladuu kor ka qiimeynaya wuu soo shaqaynayaa dugsigaas iyo diintaas waxaa loo baahan yahay oo dhaqaale ah ayuu kor ka waarideynaya afartaas qodob ayay diinta u baahanta la dhihi jiray waxaa weeye marka waxaan u baahanay marka maxay taada saddex ka mid ah waa zaa'idan ugu baahanay ardayga si fiican qur-aanka inu akriyo kor uu akriyo iyo macallinka oo saacaddii mandhaga dhamaatay saacaddu maynaga dhamaata aan lahayn oo isaga iyo carruurta waa inay kala cararaan barrababa inuusan macallinku noqoto ka warqabo iyo waalidkii oo arrintii aada oga warqabo dugsigii xiriir la samaynayo insha allahu tacaala marka waktigana wuu yaryahay wax fara badan oo sheekay dadku markii ay khibradda u leh qur-aanka iyo halkii loo baran jiray iyo brocesski loo bari jiray wax badan baa laga faa'iidaa marka insha allah wakti kalaan yaan ka dhigan ka doonaa haddii ilaa idmo waktiisaan ka waasacsanna waan maaragtay waan qaadan doonaa haddii ilaahay uu idmo aad iyo aad baa umahadsan tihiin macallimiintana waxaan leenahay insha allahu kuwood wada oo saddexdii biloodba tartankan hala sameeyo insha allahu tacaala annagana waxaan ku biirinaynaa wixii experience oon leenahay baan ku biirinaynaa insha allahu tacaala aad iyo aad baa umahadsan tihiin macallimiinta iyo maamulka iyo dadkii arrintan soo abaabulay maasha allah annagaan noo raaxayseen runtii maxay tahay doorka halkaan ku tukanay casarkiina waa qariib waaye intaas waxaa weeye ictikaaf baan ku jirnay iyo qur-aanka ilahay un dhegaysanan runtii waxaa weeye saacadihian shaqaysan jiray saacado ka fiican bay ii tahay qof walbana sidaas weye annagaan noo raaxaysa marka waxaan codsanaynaa inba lagu soo celceliyo haddii ilaahay uu idmo gabdhihii hadda qornaa oo tartanka u diyaarka ana qaar baa waktigii loo waayay marka insha allahu tacaala si ardaydoo dhan ay uga qayb galaan insha allah kusoo celceliya sanadkiiba 3 ama 4 goor insha allahu tacaala aad iyo aad baa umahadsantihiin intaasaan kusoo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu And because of time,
and we're gonna conclude inshallah ta'ala. So, cashra la gaaray inshallah ta'ala waa la dhaafay maqribka waxay kariman marka hore inshallah ta'ala macalin shariif oo dhibay soo gabagabeynaya kadibna waan tukanaynaa inshallah ta'ala kadibna cuntada iyo taqaana cabitaankii waxaan isticmaalayna dowladaha Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, let's all say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We always want to be grateful to Allah's bounties, and this is one of the blessings. Can we remain silent for 5 minutes and that's it? I know we are tired maybe, and just maybe less than 5. Okay, inshallah. Also thank our Sheikh Abdullah for giving us nasaha, guidance and advice on different things. Inshallah, we paid attention and we are going to apply whatever we heard, whatever we listened today. I'm very, very impressed, mashallah, for this impromptu competition. It was not prepared, for months like other things are prepared. It was just, within last week, and alhamdulillah, you all did well. So you should be proud of yourself, each one of you who took part in this, and also whoever did not, but I know you will be wanting to participate next time, inshallah. So be proud of yourself, and inshallah, keep going. Do what you're doing great thing. You're preserving Quran. You are the means in which Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran said, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, that indeed Allah will preserve Quran. It won't be tempted, it won't be tempered, it won't be changed. 1400 years, more than 1400 years since Quran was revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, it has not been changed a single letter, because Allah has already promised that He will protect the Quran. How? Through you guys, through us, Muslims who are dedicated in memorizing Quran, in reading the Quran, warattilil Qur'ana tartila, reading it properly, mashallah. All those who came forward, you read very well with tajweed. Inshallah, you can improve more. There is always room for improvement. And alhamdulillah for Ma'allima here, she's also working very hard, making sure that the tajweed is applied when we read the Quran. That way you really enjoy when you read the Quran. You really take the benefits from it. And you might be surprised, why did we do this? This indeed is a good, and it's something that has been encouraged in Islam, when Allah subhanahu wa ta'ala said, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. The meaning is that in the good things, including Quran of course, that we compete in doing much, much better. And so this is a good example, is Sunnatun Hasana. May Allah inshallah grant us or reward us for this hafla, for this festival today. I think Sheikh mentioned about adab, and you would see that maybe we are very strict, the teachers and the administration, but it's for your own good, because at this age, this is when you really take all in, you apply when you grow up. Even now, you start applying it in your life. Adab, it means good manners, good etiquette.
It means present self in a good character. You come to the masjid or you go to the school at home and you are in your best personality. You show your best characters, good manners, and that includes respecting the parents, listening to their commandments, whatever they are ordering you, and also the teachers. Respect your teachers. That way you will learn. If there is no respect, there is no discipline, then it's very difficult for you to get anything, for you to benefit, for you to earn the knowledge, especially Quran. And maybe some of us might face difficulties, have challenges in terms of reading the Quran, in terms of memorizing. I tell you, keep going, put effort. Put effort, pray to Allah, and your parents will pray to you, and your teachers. A good example of someone who was really having hard time to learn anything at school or at, a madrasa is a great scholar by the name Hajarul Asqalani. This scholar, this sheikh, years ago, centuries, he would go to madrasa, he won't memorize or he won't learn anything. He will get out of there, come back, the same place. He's not moving, he's not progressing. And then one day he decided, you know what, I'm done with this. I'm not gonna, waste my time anymore. So he decided to leave madrasa. On his way home, he saw people pulling a bucket of water from the well. Do you know the well? W-E-L-L. You dig the ground and you get water from it, and so you pull bucket to get the water out of the well. And then he just observed, and he saw the rope, the one you tie to the bucket, making a mark, leaving a mark on the stone, and these are really hard stones. So he was mesmerized and surprised and confused at the same time. How comes a rope is not as strong as the rock, but is really leaving a dent? It's making a curve onto the rock. How comes my brain is not able to get whatever the teacher is teaching at the madrasa? And so he decided to go back, and he became a great scholar. And until now, his books are being taught and people are learning his books. One of them, famous one, is Kitab Bulughul Maram. And he came up with a poem and share to encourage others. Utlub ولا تضجرن في المطلب فآفة الطالب أن يضجرا أما ترى الحبل في الصخرة الصماء قد أثرا. He says, utlub, seek knowledge, seek whatever you're seeking of good in this world and for the hereafter. Don't give up. لا تضجرن في المطلب. Don't give up, don't give in your quest. فآفة الطالب أن يضجرا. Indeed, it's looked down upon for especially a student when a student gives up in seeking the knowledge. أما ترى الحبل, haven't you seen the rope? في الصخرة الصماء. These stones, we don't have it here maybe, but they are very hard stones. صخرة الصماء قد أثر, it has left a mark. And so inshallah, I encourage myself and all of us here, the students especially, let's strive hard. Let's put effort, inshallah. Since my time here starting teaching, I've seen majority of you, at least in my class, are still lagging behind in terms of really putting effort, in terms of reading your assignments at home, practicing. So let's say inshallah, we're going to improve. Let's say inshallah. Inshallah. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
إن شاء الله. laakiin dadkan xirada ay kusoo tixgeliyeen weli waxaan jeclaan lahaa macallimiinta inay ducayso ducaa baa leeyin laakiin alxaaji baa ku wareejaya isaga macallin رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم الهمنا علما نعرف به اوامرك ونعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بلاغه فهم النبيين وفصاحه حفظ المرسلين وسرعه الهام ملائكه المقربين واكرمنا اللهم بنور العلم وسرعه الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك برحمتك ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا شعبان ورمضان بالعافية والسلامة والإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله